بسم الله الرحمن الرحيم waxaan haynaa dagaalka u dhaxeeya ilka Qays iyo Farxi Kabayare dagaalkan oo ka bilowday hab qabiil isla markaasna ku dhamaaday hab qabiil ugu dambeeyna waxa dagaalka soo galay Abdulqaadir Booska asagoo siyaasad ku soo galay isla markaas ka dhigay qof labadooda cadaalad kala faraayo laakiin marka hadalkiisa si fiican aad dareemayso inuu mid ka mid ah waxaan haynaa barnaamij aad u xiiso badan oo ku saabsan dagaalka la socdo qodobada caawa aan barnaamijka idinkugu haynana waxaa ka mid ah sheekadii ilka casay Kabayare alaabihii igu cusbaa igu dayo iyo igu sawir isku dhacyada nisa caawayo caalamka dagaalkan labadan shakhsi u dhaxeeya ayaa yimid kadib markii mudane alfanaan ilka casay Qays loo diiday inuu sawir iskaga qaado fila Soomaaliya isla markaasna sameeyay ficil ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya asagoo tabanaya in cadaalad darro lagu sameeyay fanaanku wuxuu leeyahay dawladdan oo ka taliyo mudane farmaajo waxa ku soo saaray xaniyaheeda aniga oo ah Maxamed Qays ilka casay dawladda badan oo dawladda ka horeysay ayaan hayso ku toosinaya u qaaday shacabka darro dibu soo soo ruux waxraran jacliya dawladdan hadda jirto nafteedana horada ku sheegaya walaalkii Cabdi Naasir aabiyad dawladdan ma oga aniga camal oo wadani ay xaniyiis ku soo saaray markii farmaajo saa loo doortay fanaan walba dhaxda soo xirtay oo heeso badan loo qaaday ma braada qaarad dhulka soo dhacay braada hoogayo baa wuxuu iska dhigayaa qof asagii ka qayb qaatay abaabulkii oo ku soo baxay madaxweyne farmaajo isla markaasna wuxuu leeyahay maadaama aan anigu soo saaray shakhsiga madaxweynaha sidee ay ugu sugdegay laadahay inuu hal sawir xataa uu yaraan oo ila galo taas waxay keentay inuu sameeyo propaganda ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya asagoo ku kiciyay hirar waaweyn oo mucaarad ah wuxuu sameeyay barnaamijka la yiraahdo igu sawir oo dad badan oo Soomaaliya taageero ka helay runtiina xiiso badan dadka waxaad arkaysaa kuwa musquul soo sawirayo xayawaanaad kala duwan kuwa sawir la galay oo leh xayawaankaasi ha inaan been sheegin waliba isagoo fanka ku jira ilka casadaan qaldaneen 6 sano 5 sano meelaha ayuu wuxuu noqday Soomaaligi ugu horeeyay ee ka qayb gasho showgiisa xisaabta ugu badan Farxiyo Fiska oo ilka casay ka sumcad badan fanka oo kaga fiican fanka wallahi intu Farxiyo Fiska intu ilka casay helay Farxiyo Fiska ma helin hada runarna moogta wallahi inaan been sheegin oo billahi oo tala waxna waa kaftan waxna wax waayo waa serious way alaabtan wallahi waa run dawladdan federaalka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxay raali ka yihiin dadka in la maaweeliyo qofka ugu badan qofka ugu weyn ee wax maaweelina waa ilka casay muxuu u mudnaan waayay marka darajo ii sheeg su'aal ku weydiinaa anigana wuxuu ilaahay igu og yahay oo aan ogahay ka sheegay arintaas idinkana gabadhaas iyo wiilkaas horta walaalkay waxa uu baaqa horta marka hore in dagaalka si shuruud la'aan loo joojiyo because wiil iyo gabadh isagana uma fiicna iyadana uma fiicna aydu wiil walash
isagana gabar way la dhalatay farxiyo waxaan kaaga jawaabi lahaa ninkan haddaba kuley adiga iyo fanaaniinta samatar xataa keen ma la mid ah hesiis I know laakiin taageeradii heesta maxaa ka qaadi kartaa wax laga qaadi kara ilaa inta ilka casma jirto saasa uga foqaday qofka ka foqaani igu sawir أنا وحلا يا بنا مركا يقول فرحية كبيرة وكجوبتي تاس يدهم مرصدا حسابات الجبر مكان اسكت نفتح وحس لا فرحية ما تلقي ولا